بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدا إنه كوضا ورقبنا دولة فدرالك الصومالية وحاي كجرت الدعوة إن قد حيسي دلك كينيا ولا لها النهاية وكسب سنة مرن كبضة دعوة سكسعتي هيج محكمة عدالة الدنيا وتي دوان أن أوتقني أنا يوفد أنا هجامينيا إن أنو هرجينا كرنقسي محكمة عدالة الدنيا كسبسن إن أنو ديارنا هاي إن دعوة لدجيستو أفرت نوفمبر دلك كينيا أنا وفد بلارن أيا كيميد محكمة وحي دجيستي أو قدومي كحجان ك أما مدحوين كحجان كمحكمة الدنيا أو كيس كان مدحوينها محكمة دكاه أما قدوميها كاه كاتشو labada dhinac bay isu dhageysatay doodayadu waxa ahayd go'aanka aan geynina ahaa garnaqsiga hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4teeda Kenya ay codsatay muddo hal sanad ah in loogu daro maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay daristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhageysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambays maxkamaduna qaraar waxa ay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan 8 soo jeediyaan 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 waxa kale maxkamaddu cadeysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwadda badda ay dhamaadeen horena loo soo gudbiyay haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo dhinac walibana soo diyaar garoobo 8 June ilaa 12 June sanadka 2020 anagoo haddaan nahay dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ahaa mowqifkayga 4 November in aan laga kordhinin hase yeeshee waa u hoggaansameynaa go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhamaanshaha dhuleed iyo badeed ee dowladda Soomaaliya aan ku madelno dowladda Soomaaliyana hal inch ay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aan gudbinayno garnaqsigeena aan gudbinayno waqtigaas loo asteeyina diyaar aanu u nahay inaanu shacabweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ba ku madelno iyadoo mowqifkaygu cad yahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka wararka ee Al-Hurriya News subscribe inoo saar sidoo kale furo gambaleelka faallooyin kale oo xiiso badan oo la xiriira arrimaha siyaasadda ee dalka ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah